Salaam maanta waxaan arkaynaa sida maxaa la dhahaa kood loogu qoro sallallahu alayhi wasallam ama ay sheeg Allah hadii markaad inaad qorto aad doonaysid si sahlan sidaad ugu qori lahayd kood adigoo isticmaalaya Microsoft Office ama Microsoft Word adigoo isticmaalaya waxaan qoraynaa marka hore maxaa la dhahdaa xuruuftan hoos ku qoran tusaale haddii aan doonayno inaan qoro sallallahu alayhi wasallam waxaan qoraynaa hadii anagoo isticmaalayno waxaan qoraynaa maxaa la yiraahdaa FDFSA yaan isticmaalayaan qoraynaa marka tusaale halkan hoostaan igu soo qorayda waxaad qoraysaa baan idhi maxamed baad qoraysaa sallallahu alayhi wasallam maadaama doonaysid inaad magaca rasuulka aad sallallahu alayhi wasallam ku xujisid maxamed yaad iska sii qoranaysaa kadib FDFA baad qoraysaa kadib waxaad isku taabanaysaa alta iyo xarafka x-ga ee ka koreeya isku saaran iyaad isku taabanaysaa mar kaliya wax space ma siinaysid space haddaad siisid wax kale soo qoraya kood kale soo qoraya alta iyo x baad isku taabanaysaa kadib saas iyo sallallahu alayhi wasallam ku soo qoraya tusaale sidan oo kale FDFA x iyo la isku taabtay altada iyo x-ga isku taabtay altada horeysiin ama FDF2 iyaad qoraysaa kadib alta iyo x-ga altada ka horeysiinaysaa kadib Allah ayuu soo qorayaa waad mahadsantihiin saaxiibayaal flowga ayaan la nagaga bakhaylinayaa